إن خاتم مثلا قرالك ودن بيوحو شيء جاي إن لا أقون صدي أو كم التاي بروسس كم التاي أو مدحوينه هذي وهالكيميد أو سوين لو سودوي إذا نفترض حب عنتها إن لا جلت الشذو ورد بالشذا علماء هواينك عيد والبين لا جلت الشذو أنت أصلا الله مرسين وحدعي كرس المركة إن يقولون إيرهدان بعدما أنا وحي أن أول كوهشيني أو ماشي يالي أو تلاذي أنا محكولهين أو دستور كي أنا لهين أها أو دولد أنا كمد أهين بعدما لقى جوري أو تنن لقى تلقلين أنا يكون جرنا دولد نمد إني يرهدان يا كمسؤولة مركة أرنتاس وحكم مسؤولة حل بعناده وحكم مسؤولة قدومك وحكم مسؤولة مدحوينها قرق محايل إيجا لو داريي wadajirka iyo isku haynta ummadda Soomaaliyeed dastuurkan iyaga ku dhaartay in aysan jabin iyaga laga rabaa inay ummadda isku hayaan oo ay walaalayaan iyaga ka mas'uula marka hadii marka saas lagu socdo ogaada dibka taagan wuxuu yahay dalkan wuxuu ku jiraa chapter 7 wali chapter 7 anagu kamayna bixin hadii anagu aan qaban weyno oo xildhibaanadu qaban waayaan oo gudoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dawlad goboleedii noo qabsoomi waayaan waxa khasab ah in beesha caalamka ay garbadub noo qabato waa hadii wali danna laga leeyahay hadii aan danna laga lahayna in la sii daayo hadii la sii daayana de qof walba tuuladiisii iyo xoolihiisu iska raacanaya qarnimadeena halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dawladnimadeena marka waxaan ku talinayaa dadka mas'uuliyiinta ah arintan dastuurka ah waxa la rabaa dadka inay soo keentee dadka inay kala dirto looma baahna waxa loo baahan yahay waqtiga xaadirka ah in laga shaqeeyo arrimaha amniga oo la xoojiyo amnigana la xoojiyo oo niyada loo dhisay ciidamada qaranka ma aha in laga shaqeeyo wax la isku khilaafi karo ama khilaaf keeni kara ama dhibaato keeni kara ama dib noo dhigi kara dawladnimadeenu weligeed waxay ahayd diidiinkuna waxa laga yaabaa 6 bilood inuu meel taagnaado oo socon laakiin waa ku soo badbaadnay wada jirkeennii iyo midnimadeennii ma lumin laakiin haddaan orodno oo aan damacno inaan si aan xal lahayn aan u soconno waxaa dhici karaysa inaan kufno ama aan jabnaba marka mas'uuliyiinta qaranka madaxweynaha uu koow ka yahay madaxweynaha dawladda federaalka uu koow ka yahay gudoonka iyo baarlamaankaba inay naga ilaaliyaan dib u dhac iyo dhibaato cadawgeena inooga faa'iideystaan waa salaamantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh